wardegdeg daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta dagaalkii ugu adkaa waxa ay la galeen kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab. Dagaalkan waxa uu ka dhacay tuulooyin hoos yimaada deegaanka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Nala daawada ciidanka dhulka xeebta kula dagaalamaya khawaarijta Al-Shabaab. waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta dagaalkii ugu cuslaa la galay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Dagaalkan waxa uu ka dhacay tuulooyin u dhaxeeya degmooyinka Buulamareer iyo Baraawe waxayna ciidanku howlgaladani ay ka sameeyeen dhanka xeebta ay hoos yimaada degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. saad muuqaalka aad ku aragteen bageesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku hoobtay fariisimo ay nabadiidku ku lahaayeen dhulka xeebta ay hoos yimaada degmada Baraawe waxayna ciidanku halkaas ay la galeen dagaal adag kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab. ciidanka ayaa rasaas kala dul dhacay koox ka tirsan nabadiidka oo halkaas difaaciyo ugu qodnaa waxayna ciidanku ku guuleysteen inay guud ahaanba halkaas ay ka sifeeyaan kooxdii ku dhuumaleysanaysay. muuqaalada aad aragteen waxay inaga soo gaareen furimaha hore ee dagaalka waxayna ciidanku dhulka xeebta ah ee degmada Baraawe hoos yimaada ama tuulooyinka hoos yimaada ay dagaal kula galeen kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab. mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xiriir la sameeyay ayaa wuxuu inoo xaqiijiyay in howlgalkii ugu cuslaa maanta laga sameeyay tuulooyin hoostaga degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Baraawe dhawaan waxa gaaray cutubyadii ugu badnaa ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo loo carbiyay inay dagaal adag la galaan kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab. ciidanka oo si weyn uga warhayay xogta kooxdan ku sugan deegaanada ama tuulooyinka hoos yimaada Baraawe ayaa duhurnimadii maanta waxa ay ku qaadeen dagaalkii ugu cuslaa waxayna halkaas ciidamadu ku guuleysteen in guud ahaanba ay ka sifeeyaan kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab. muuqaalada aad aragteen waxa ay naga soo gaareen dagaalkii maanta ka dhacay tuulooyin hoostaga degmada Baraawe. ciidanka ayaana ku guuleystay inay kala kacaan difaacidii ugu adkaa oo ay nabadiidku ku lahaayeen deegaanadaasi. wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalkii maanta ay hub iyo saanado military ay ka furteen kooxaha nabadiidka ah waxayna ciidanku sidoo kale ay gacanta ku soo dhigeen maleeshiyaad dhaawac ah oo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. idima soo gudbin karno muuqaalka maleeshiyaadka dhaawaca ah sababa la xiriira shuruucda YouTube-ka balse Telegram-keena ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Ilaahay insha Allah. ciidanka ayaa gudaha u galay goobo ay ku dhuumaleysan jireen nabadiidka argagixisada ee Al-Shabaab. saad aragteen dagaalku wuxuu ka dhacay dhulka xeebta ee u dhaxeeya degmooyinka Buulamareer iyo Baraawe waxayna ciidanku qaadeen maanta howlgalkii ugu cuslaa oo deegaanadaasi loogu xoreynayo kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab. xaqiiqooyinka aan ka soo tubinayna dagaalka ayaa ah in ciidanku maanta ay ku hobteen dhowr goobood ama ay u daateen dhowr fariisimood oo nabadiidku ku dhuumaleysanayeen waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maanta dagaalkii ugu adkaa ee la galeen kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab. Buulamareer iyo Baraawe inta u dhaxaysa waxa maanta ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa iyadoo ciidamadu ay ku guuleysteen in deegaano gaaraya 25 kiiloomitir ay ka sifeeyaan kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab. wariyaasheena oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka khaasatan deegaanadii maanta howlgalada ay ka dhaceen ayaa inoo soo diray muuqaaladani waxayna sheegeen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta ay ku gacan sareeyeen dagaalkii ay la galeen khawaarijta Al-Shabaab. xilligan oo xilli habeenimo ah oo idin la hadlayeen wali ciidamadu waxa ay wadaan howlgallo ballaaran oo ay ka wadaan dhanka xeebta iyadoona warku ay sheegayaan kooxda nabadiidka ah inay ka baxeen tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmooyinka Buulamareer iyo Baraawe halkaas oo ay ka cabsi qabaan in ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku soo weeraraan. dagaalka oo ahaa mid culus ay ciidamadu sidoo kale waxa ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan hub iyo saanado military oo ay ka carreen argagixisada Al-Shabaab iyadoona ciidamadu sidoo kale ay ku guuleysteen in deegaano dhowr ah ay ka ciribtiraan khawaarijta Al-Shabaab. ciidanka commandoska Gorgor oo hayay xogta kooxdan ku sugan inta u dhaxaysa Buulamareer iyo Baraawe ay waxay ku guuleysteen ciidanku inay ku qaadaan dagaalkii ugu cuslaa waxaana saad muuqaalada hordhaca aad ku aragteenba ciidanka oo buuraha ama dhulka xeebta ku daadanaya
kuna waabsanaya kooxda argagixisada ee al-shabaab waxayna ciidanku ay ku guuleysteen in deegaanadaasi ay ka sifeeyaan nabadiidka argagixisada ah sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in dagaalkii maanta nabadiidka looga gubay 3 gaari oo nooca dagaalka ah kuwaas oo ku rakibnaayeen qoriga nooca loo yaqaano dhashiikaha sidoo kale ciidanku waxay gacanta ku soo dhigeen 12 qori oo nooca loo yaqaano BKM-ka oo ay ka carreen kooxda argagixisada ee al-shabaab maalmahanba ciidanka xoogga dalka waxa ay wadeen howlgal loogu magac daray howlgalka aamusan oo ay warbaahintu adag tahay inay ku hesho xogta weeraradaasi ama howlgalkaas ciidanku ay qaadayaan balse anaga oo soo xiganayna saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhiirigelinayna ciidanka ayaan waxaan helnaa xogaha ku aadan goobaha ciidamadu ay howlgalada culus ay ka sameeyaan ciidanka xoogga dalka ee maanta howlgalada adag ka sameeyay deegaanada iyo tuulooyin dhaca degmooyinka Baraawe iyo Bolomareer ayaa sidoo kale waxay warku sheegayaan in ciidanku ay guud ahaanba maanta dhowr jiha ay ka weerareen degmooyinkaasi tuulooyin u dhaxeeya waxayna ku guuleysteen inay qaarijiyaan 2 horjoogo oo ka tirsan kooxda qawaarij ah ee al-shabaab labadaas horjoogo oo lagu kala magacaabi jiray Shucayb Cabdullah oo magaciisu afgarashadu uu yahay Xudayfa iyo Iimaan Cabdullaahi Qaali ama Iimaan Cabdullaahi Qaalib waasna afgarashadiisu ay tahay Umayr saan xogta aan ku helnay sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay difaacyo dhowr ah ay kala kacaan kooxaha argagixisada ah waxayna ciidanku haatan oo habeenimo ah ay howlgaladii ugu cuslaa ay ka wadaan tuulooyin hoostaga degmooyinka Baraawe iyo Bolomareer howlgalkan uu ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ciidamadu madaxweynaha oo amarkiisa ay fulinayeen kadib uu taliyaasha madaxweynuhu ku amray in ay dhaqaaqaan waxayna sidoo kale madaxweynaha oo xalay kulan la saacado qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Yuusuf Raaga iyo madaxweynuhu wuxuu ku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan deegaanada xeebta ah laga nadiifiyo kooxda qawaarij ah al-shabaab maadaama deegaanadaasi ay ka bilaaban doonaan qodista shidaalka Soomaaliya kooxda nabadiidka ah waxa soo wajahay cabsidii ugu xoogganeed oo ay ka qabaan dagaalka ay ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxayna warku sheegayaan in ciidan deegaan aad u tiro badan laga abaabulay degmooyinka Qoryooley iyo Shalambood kuwaas oo qayb ka qaadanaya howlgalka adag ee lagu jiro kooxda qawaarij ah ee al-shabaab qasaarihii ugu xooganaa ayaa maanta lagu gaarsiiyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxayna ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen in goobo dhowr ah ay kala kacaan nabadiidka al-shabaab Galca TV ayaa heshay sidoo kale xogta ah in ciidanku maanta ay ku guuleysteen qaarijinta 52 dhagar qabo oo ka tirsan kooxda nabadiidka ah al-shabaab waxaana galabta dagaalkii ugu cuslaa oo ka dhacay tuulooyin hoostaga degmada Bolomareer lagu guuleystay in halkaas lagu qaarijiyo 52 dhagar qabo oo ka tirsan argagixisada al-shabaab waxayna ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen in halkaas ay ka sifeeyaan kooxda nabadiidka ah al-shabaab duqeymo xoogan oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay ciidamadu ku guuleysteen in 52 dhagar qabo oo ka tirsan qawaarijta halkaas lagu beegsado warkay sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanku haatan ay u sii dhaqaaqeen goobo kale oo hor leh dhulka xeebta ah oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxda qawaarijta ah ee al-shabaab guud ahaan Shabeellaha Hoose waxa si dardar leh uga soconaya howlgalada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilligan oo xilli habeenimo ah waxay wararku sheegayaan in dagaalo goosgoos ay ka soconayaan tuulooyin hoostaga degmada Baraawe waxayna ciidanku ay ku raad joogaan firxadka kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab warku waxay sheegayaan meedadkii maanta looga dilay argagixisada dagaalkii ka dhacay tuulooyin hoostiga degmada Baraawe ay rabeen inay jiitaan balse ciidanka xoogga dalka oo ka warhayay xogta kooxdan doonaysa inay meedadka qaataan ayaa ka hortagay 3 jeer ay soo rogaal celiyeen say wararku inuu ku heliyeen kooxda qawaarij ah al-shabaab ayaa ciidanku waxay ku guuleysteen inay dib u jabiyaan kooxdii doonaysa inay dhaawacay meedadka ka tirsan qawaarij al-shabaab ay qaataan warkay sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay abaabulkii ugu dambeeyay haatan ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo ciidanku gurmudkii ugu badnaa uu ka soo kala gaarayo deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose warkay sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka ay haatanba ay deegaano dhowr ah ay gacanta kaga dhigeen ilaa 28 tuulo oo hoos yimaada degmooyinka Bolomareer iyo Baraawe ay ciidanku gacanta ku dhigeen galmadii maanta waxayna ka sifeeyeen kooxdii qawaarijta ah ee al-shabaab guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose waxa ka soconaya howlgaladii ugu cuslaa oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada ayaa maalmahanba
wadeen dhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee deegaanada nabadiidku ay ku dhuumaaleysanayaan looga xoreyn lahaa sidoo kale waxa gurmadkii ugu xooganaa ay soo gaarayaan ciidanka xoogga dalka ee dagaalka kaga jira aaga degmada Baraawe iyo tuulooyinka ku dhow iyadoona isbuucii la soo dhaafay cutubyadii tababarka loo soo xiray haatan ay ku qulquleen goobaha farimaha hore ee dagaalka ee ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wada gulufka ugu xoogana oo ka dhanaa khawaarij al-shabaab waxayna ciidanku gulufkaasi ka gaareen guulaad waaweyn daawadayaal wixii ku soo kordha howlgallada culus ee haatan ka bilowday deegaanada dhaca dhulka xeebta ee degmada Baraawe janalkeena ayaad ka daawan doontaan ciidankuna waxay ka gaareen guulaad waaweyn fadlan hadduu muuqaalkan ku soo gaaro meel dheer inoo gaarsii si asxaab badan ay kula socdaan howlgallada halkan ay ka wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama toos ay uga daawadaan guulaha ciidamadu ay gaarayaan waa mahadsantihiin